kulanti wanaagsan halkan warqad tube waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya kaga hayno kuwada ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay sida loo shirqoolay saraakiil xoogga dalka ka tirsan oo lagu laayay gobolka Galgaduud maxaa ka jira in shirqoolkaani ahaa mid abaabulan oo siyaasadeed muxuu ka yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo askar gurigiisa lagu laayay loo tiiriyay in saraakiishan loogu aaray macluumaad dheeraad oo ku saabsan shirqoolka saraakiisha lagu laayay gobolka Galgaduud ayaan warkeeda kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay waxa looga hadlay kulamo xoogan oo xalay ka dhacay Muqdisho iyo dawladda federaalka oo qaadaysa tilaabo jawaab oo saraakiisha lagu laayay Galgaduud galmudug oo war hordhaca ka soo saartay weerarka lagu xasuuqay saraakiisha iyo qorshahan oo ka batay intii hore senator ka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya oo iscasilay sababta ka dambeysay iscasilaadiisa ayaan idin haynaa iyo Turkiga oo lagu eedeeyay fududeynta tilaabooyin uu ku soo dhaweysanayo Soomaaliya qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warka insha Allah waana qamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 10ka bisha 12 December sanadda 2020 daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigoo gaarsiinaya saaxiibadaada kuna shargareynaya baraha bulshada waad ku maasantahay qaybta commentiga haddii aad noogu raabta aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilowno warka warqad tube faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar lama filaan noqday oo ka dhacay gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kaasi oo lagu laayay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka kuwa kalena lagu dhaawacay inta la xaqiijiyay 6 sargaal oo ka tirsan qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa weerarkaasi wuxuushnimada ah lagu laayay halka 4 kalena la afduubtay oo nolol iyo geeri aan toona lagu haynin sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan qaybta 12aad ee militariga Soomaaliya ee ka howlgala gudaha Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud saraakiishaasi ayaa lagu weeraray deegaan lagu magacaabo cag faroge oo dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Balambal iyo Gurceel oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud weerarka waxa fuliyay maleeshiya beelad u abaabulan qaab qabiil waxayna wadada u galeen saraakiishan isla markaasina rasaas ayay huwiyeen gaari saraakiisha ay la socdeen oo ka baxay Gurceel kuna sii jeeday Balambal waxaana magacyada saraakiisha lagu dilay weerarkaasi ka mid ah Gaashaanle Dhagaqool Yuusuf Gaashaanle Cabdi Guune laba xidig le Faarax Jaamac Colaad kabtan Shariif Ciro Maxamed Gaashaanle Gaangul Xalane iyo kabtan Saciid Xasan Faley xogta ayaa waxay sheegaysaa in saraakiisha la laayay ashalay laga soo qaaday degmada Balambal isla markaasina imtixaan looga qaaday xeram military oo lagu magacaabo Coosh taasi oo ku taala duleedka magaalada Gurceel sababta loo weeraray saraakiishaasi ayaa waxa ka soo baxaya xogo dheeraada waxaase ay salka ku haysaa aana qabiil oo muddo ka dhex taagneed beela een degan Balambal iyo sidoo kale Gurceel oo isku haysta baraago iyo tuulooyin aan micno lahayn oo ku yaala duleedka degmada Balambal ee gobolka Galgaduud shirqoolka lagu laayay saraakiisha xoogga dalka ka tirsan ayaa u muuqda mid abaabulan kana miisaan badan dil aanooyin qabiil ku salaysan ee hore deegaanadaasi uga dhici jiray dadka isticmaala baraha bulshada ayaa aad waxay uga falceliyeen arrintan iyagoona qaarkood sheegay in loogu aarguday saraakiishan 3 sano ka hor saraakiishii lagu laayay hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo weerar ay ku qaadeen hay'adda nabadgudida sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA sidoo kale dadka qaar ee ka hadlay weerarkan lagu beegsaday saraakiisha ayaa waxay u saariyeen musharaxiinta ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo ee ku shirsan Hotel Jazeera iyagoona sababta ku sheegay bilowga fidna colaadeed iyo sidoo kale fashilinta qorshaha Farmaajo ee doorashooyinka in arrintan ay tahay isweydiimo badan ayaa dul hoganaya waxa xilligan xasaasiga ah ee kala guurka ah doorashada dalku ku wajahan yahay ku soo aadiyay shirqoolka saraakiisha xoogga dalka ka tirsan ee waliba isku haybta lagu laayay inta u dhaxaysa Gurceel iyo Balambal iyadoo mas'uuliyiin dhowr oo ka hadlay arrintan si weyn uga soo horjeesteen kuna baaqeen in kooxdii filisay cadaaladda la hor keeno Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dadka qaar ay isticmaala baraha bulshada ay u direen in saraakiisha la laayay loogu aaray askartii gurigiisa lagu laayay ayaa ka hadlay arrintan isagoona tilmaamay in uu si weyn uga xun yahay una cambaaraynayo falka foosha xun ee lagu beegsaday saraakiisha difaaca dalka waxa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ku baaqeen cadaaladda la hor keeno kooxdii ka dambeysay weerarkaasi lagu xasuuqay saraakiisha ee ka baxsan dhaqanka iyo sidoo kale damiirka Soomaalinimada dhankiisa ra'iisul wasaare hore dalka Xasan Cali Khayre ayaa ka hadlay arrintan waxa uu yiri waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada xoogga dalka ehelada iyo qoysaska ay ka geeriyoodeen uga tacsiyeynaya saraakiisha ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka ee lagu laayay falkii foosha xumaa ee ka dhacay duleedka Balambal askarigu ma lahan qabiil waana astaan dawladnimo oo ummadda u wada dhaxaysa waxaan dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedka Galmudug iyo bulshada ku nool deegaanka falkaasi ka dhacay argagaxa leh
ka codsanaya in xil gaar ah la iska saaro si degdeg ahna cadaaladda loo harkeeno kuwii falkaasi fuliyay ayuu yiri ra'iisul wasaare hore ee dalka. si kastaba dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa laga sugayaa tillaabooyinka ay qaadi doonaan iyadoo arrintan ay tahay mid si weyn looga dareemayo guud ahaan Soomaaliya waxaana ay ku soo aaday xilli xaalad siyaasadeed oo kala guura dalka ay ka jirto. Galmudug iyo dowladda federaalka wadajir ayay ugu howlan yihiin sida arrintaasi gacanta ay ugu soo dhigi lahaayeen. qaybii hore ee warqaatiba daawanaysan wararka laga helayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegaya kadib shilka saraakiisha lagu dilay inay dhaceen kulamo dhaxmaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa looga hadlay kulanka intiisa badan sidii tilaabo adag looga qaadi lahaa kooxdii ka dambeysay dilka difaacayaasha xoogga dalka ee ka tirsanaa qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka ee lagu laayay inta u dhaxaysa Guraceel iyo Balambal. waxaana dowladda federaalka isla gorfeeyeen sida ay u qaadi lahaayeen tilaabo degdeg ah oo jawaab u noqon karta gacan ku dhiiglayaashii dilkaasi ka dambeeyay. saraakiisha kulanka joogay ayaa sheegay in sidoo kale xubno ka socda taliska xoogga dalka la qorsheynayo in ay socdaal ku tagaan Balambal iyo Guraceel iyo sidoo kale shilka halka uu ka dhacay oo ah meel u dhaxaysa Guraceel iyo Balambal. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa amray taliska ciidamada xoogga dalka inay soo qabtaan meel kastaba hal la geeye kooxdii falkaasi fulisay si cadaaladda loo horkeeno isla markaasina qisaas loogu fuliyo maadaama ay fal wuxuushnimo geysteen kulana kaceen xubno ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo saraakiil sarsare ahaa. weli warqaatiba ay daawanaysan wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa si kulul kaga hadlay weerarka wuxuushnimada ah ee lagu dilay saraakiisha ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. wasiir Falagle waxa uu sheegay in maamulkiisu saacadaha soo socda dadweynaha uu la wadaagi doono faahfaahin ku saabsan weerarka gaadmada ah ee lagu dilay saraakiisha ka tirsan ciidamada xoogga dalka. deegaankan oo dhan ayaa aad loogu baxay haddii la dhaxgalo dadka Soomaalidana waa wax la ogaan karo halka ay ka yimaadeen iyo waxa ay yihiin. marka saacadaha soo socda ayaan warbaahinta la wadaagi doonaa wixii shaqo ah ee laamaha ammaanku ay soo qabtaan ayuu yiri wasiirka warfaafinta Galmudug. sidoo kale waxa war qoraal bartiisa Facebook soo dhigay wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi waxa uu ku yiri ciidamada ammaanka Galmudug hawl baahsan ayay ka wadaan deegaanka oo fal dambiyeedkan foosha xun ka dhacay. waxay soo gabagabayn doonaan saacadaha soo socda waxaana soo bandhigi doonaa kuwii ka dambeeyay falkaas ayuu yiri wasiirka amniga. si kastaba dowlad goboleedka Galmudug ayaa si weyn waxay uga howlan yihiin sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kuwii ka dambeeyay falkii foosha xumaa ee lagu dilay saraakiisha ka tirsaneed ciidamada xoogga dalka iyagoo garab ka helaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan ee ka howlgala Galmudug. weli warqaatiba ay daawanaysan senator Mustafa Maxamuud Goodax oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhaweeto wax uu shaaciyay inuu iscasilay isagoona eedeymo u jeediyay xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mustafa oo xalay ka hadlay munaasabad ka socotay dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu sheegay inuu ka qoomameynayo xilkaasi maadaama uu ku dooday in dowladda federaalka Soomaaliya wax qadarin aysan u haynin madax banaanida Somaliland. senatorka iscasilay oo dhalash ahaan ka soo jeeda Somaliland ayaa sheegay in uu soo afmeeray in uu xil dambe ka qabto Soomaaliya xilli uu muddo ka tirsanaa golaha aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Soomaaliya lagama qarsanayn Somaliland ay tahay dal la siman Soomaaliya maadaama ay ahayd in labada dhinac si siman ay u macaamilaan. xilkii aan qabtay ee Soomaaliya aan ka hayay waan ka qoomameynayaa caawa oo laga bilaabana waa uu iga casilan yahay ayuu yiri mar uu ka hadlayay arrimahaasi. Mustafa ayaa sidoo kale waxa lagu wadaa in uu cafis weydiisto madaxweynaha Somaliland Muuse Biix Cabdi si uu dib ugu laabto deegaanada Somaliland maadaama uu iska casilay xilkii uu ka hayay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ugu dambeynna dowladda Greek ee dariska la ah dowladda Turkiga ayaa eedeymo culus waxay ugu soo jeedisay sida ay u soo dhaweysanayso dadka tahriibka ee ka imaanaya Soomaaliya iyo guud ahaan xaaladaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya iyo dadka ka socda Soomaaliya Turkiga ay ku adeegsan si dhow ay ula socoto. waxa Greek ay sheegeen in qaaradda Yurub in qaxooti badan oo Soomaaliya ay soo galaan ay mas'uul ka tahay dowladda Turkiga oo iyadu si weyn u soo dhaweysa shacabka Soomaaliyeed iyadoona arrintaasi cadaadis ku saaraysa in Ankara laga joojiyo. waxaana midowga Yurub ay u gudbisay dacwad ka dhan sida xuquuq ay tibaaxayaan. Turkiga ayaa waxa uu ka gadoodsan yahay in midowga Yurub uusan ka helin taageero ku aadan fududeynta dalku gal la siiyo qaxootiga Soomaalida ah ama noloshooda in la qaabilo. bilihii Febraayo iyo Maarso ee sanadan waxaa jiray dagaal maalmo socday oo u dhaxeeyay mujaahidiin ka kala socda
Giriiga iyo sidoo kale Turkiga waxaana Turkiga had iyo jeer uu xoog saaraya sidii Soomaalida loo garab siin lahaa Soomaaliya waan fahamsanahay in mas'uuliyiinta Turkiga wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ay kor u qaadayaan oo socdaalkooda Turkiga ayaa lagu yiri war ka soo baxay Giriiga si kastaba Turkiga ayaa sheegay marnaba inaysan dhimi doonin taageerada ay siiyaan shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed guud ahaan intaas aan ku soo gabagabeynaya warkaad kala socotaan warqaad tube daawad haddaad ku cusubtahay channelka nagu soo bir subscribe dhawr kuma kadibna fura gambalaalka tan ay quality daba nabaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga adna leedahay waxaan ku noolahay Sweden Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu sahlan yahay iyo sida uu dhaqso badan yahay